qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Khaatumo ayaa saaka waxay kormeer shaqo ku tageen deegaano ka tirsan gobolka Nacayno oo ay ka mid ahaayeen Dandan, Dhilaalo, Hurufadhi iyo waliba Sooljoogto waxaana kormeerkan uselka ku hayay u gurgalida xaaladaha deegaanadaasi waxaana si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiintaasi shacabweynaha ku dhaqan deegaanada kormeerkan sameynaya waxa hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatumo Maxamed Sheekh Cumar waxaana ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha Axmed Maxamuud Doolaal xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Khaatumo iyo maamulka golaha deegaanka Buuhoodle waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay guddoonka baarlamaanka maamulka Khaatumo Maxamed Sheekh Cumar oo sheegay inay ka noqdeen wada hadaladii ay Soomaaliland la gali lahaayeen waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan waad maqasheen Khaatumo iyo way wada hadleen maamulka Soomaaliland shuruudihii ugu horeeyay bay ka mid ahayd inaan inta wada hadalkaasi socdo deegaankan aanu ka dhicin wax diiwaan gelin la yiraahdo laba qodob baa lagu heshiiyay oo hadalku ahaa wuxuu ahaa in laba maamul ahaan loo wada shiro iyo in dibadda lagu wada hadlo dal dibadda labadaas inta ay socdaanna wax diiwaan gelin ah inaanay dhicin wax faragelin ah inaanay dhicin qodobkii ugu horeeyay ee ay jabiyeen waxa weeye diiwaan gelintii laga ballamay way jabiyeen hadday jabiyeen waanu ka baxay annaguna Khaatumo ha noolaato annaga oo ku hadlayna magaca degmada Dhilaalo oo hoos tagta gobolka Cayn loogana taliyo Cayn waxaanu cadeynaynaa inaanay halka kan Soomaaliland marka hore ayaan lahayn marka xigtana aynay qabsan marka saddexaadna aynay qabsan doonin ayna ka codaynayn sanduuqna la keeni doonin wixii isku dadaana ay dhib kala kulmi doonaan la sawirto waa mid aad isaga ku noqonaysaan ama mid aad dhulbaantatiin ku ahaanaysaan oo aad reer Khaatumo ku ahaanaysaan marka iska ilaaliya waynu ka wada hortageynaa sida gudoomiyuhu sheegayna magaaladan Hurufadhi waxay ku caanbaxday midnimo waxay ku caanbaxday inay isdifaacdo weligeed iyadoon cid kalena aanay u imanin midnimadiina ilaashada magaaladiina difaacda anigoo Faadumo jaamacateeye kana tirsan haweenka Dhilaalood ma doonayno Soomaaliland ma u codaynayno mana rabno Soomaalidiin mana doonayno dhalinyarada degmada Dhilaalo komishinkii waxa sheegay ma doono anagu dadka Khaatumo dad Soomaaliyeed baa mahay wax ka soo nimaa Soomaaliyeed waan taageerina dadka le waxba soo ugu deganay keenay deganay aad baan ugu deganay qolkii mana doonayno Dhilaalo iyo deegaankeeda dadka ku nool waxaanu cadeynaynaa oo u sheegaynaa cid kasta oo ay khusayso marka hore inaan Soomaaliland ahayn ee aanu nahay maamulka Khaatumo State of Soomaaliya la yiraahdo diiwaan gelin ama doorasho inaayna khusayn oo aan shuqul ku lahayn oo deegaanka yaga meel kasta oo Khaatumo ay shuqul ku leedahay inaan la keeni doonin haddii la keenana aanu talaabada insha Allah haddii idin kala ay ku noqoto gardarada ka qaadi doono ku sheegana allaha hadduu alla yahay nagala baxo waxa marabno qarmuunkaaga iyo dadka ku shaqeeya burqaatayaasha inaanu xabadayadu ku dhacdo waxaan salaamayaa Khaatumo Soomaaliya anagu Soomaaliland dooni mayno una codayn mayno uguna ridi mayno nana iman maayaan anagoo وسدام عبد الله عبد TV عالمي Somali Cable Buuhoodle